Suuriya dhulkii loo yaqaanay bilaadu Shaam dhul martigeliyay dhammaan ilbaxnimooyinkii ugu facaweynaa dunida laga soo bilaabo boqortooyooyinkii qadiimiga ahaa ilaa waayihii dahabiga ahaa ee Islaamka. Haddaba ku soo dhawaada muuqaal gaar ah oo ku saabsan Suuriya. Waa dal noocee ah? Suuriya waa dal muhiim ah oo ku yaala gobolka Bariga Dhexe. Magaca rasmiga ah ee loo yaqaan waa Jamhuuriyadda Carbeed ee Suuriya. Wuxuuna xuduud la leeyahay wadamada kala ah Turkiga, Ciraaq, Urdun, Lubnaan iyo dhulka la haysta ee Falastiin. Magaalo madaxda dalka Suuriya waa Dimashq, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn caalamka. Magaalooyin kale ee waaweyn waxaa ka mid ah Xalab, Xumus iyo Laadiqiya. tirada dadka reer Suuriya waxaa lagu qiyaasaa 21 milyan, hase yeeshee tiradaas hoos u dhac ayaa ku yimid sabab la xiriira dagaaladii ka socday dalkaas. Bulshada ugu badan ee dalkan waa Carabta Suuriya ama Carabta Shaam, waxayna ka yihiin 74% guud ahaan dadka Suuriya. Kooxda labaad ee ugu tirada badan waa Kurdida, waxaana lagu qiyaasaa tiradooda 9 ilaa 10%. halka Turkumaanku ay yihiin kooxda saddexaad ee ugu badan. Waxaa kaloo jira ku dhawaad 4% oo Ashuuriyiin ah, 1.5% oo Sirkaasiyaan ah, 1% oo Armeniyan ah. Inta kale ee soo hartayna waa kooxo yaryar oo laga tirada badan yahay sida Greek, Bershiyan, Bashtuun iyo Bosniyan. dhanka diimaha dadka Suuriya badankoodu waa muslimiin sunni ah, taasoo ah diinta ugu badan ee dalka oo ay aaminsan yihiin in ka badan 80%. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kooxo kale oo diimo kala duwan haysta sida Shiicada Calaawiyiinta. Kooxdan tiradoodu waxa ay gaarayaan qiyaastii 10%. Intooda badanna waxa ay ku nool yihiin xeebaha badda Mediterranean-ka, waana madhabka ay haystaan qoyska reer Asad oo muddo dheer maamulayay dalka Suuriya. Waxaa kaloo jira koox loo magacaabo Duruus. Kooxdan waxa ay ka yihiin qiyaastii 3%. waxa aynu ku nool yihiin koonfurta dalka, gaar ahaan gobolka Suweyda. waxa ayna leeyihiin caqiidooyin qarsoon iyo xeerar adag oo u gaar ah, iyadoo aysan suurtagal ahayn in lagu biiro ama laga baxo diintooda. Kooxdan iskuma arkaan in ay yihiin muslimiin, badankooduna ma guursadaan bulshada aan haysan diintooda. Kooxdan waxa ay soo ifbixeen qarnigii 11aad ee miilaadiga, gaar ahaan Masar xilligii xukunkii Faatimiyiinta. Inkastoo si tartiib ah ay uga dabargo'een Masar, haddana weli waxa ay ku xoogan yihiin dhulalka Suuriya, Lubnaan iyo dhulka la haysta ee Falastiin. Carabiga waa luqadda rasmiga ah ee dalka, waxayna ku hadlaan lahjadda Shaamiga oo leh cod iyo erayo u gaar ah oo ka duwan lahjadaha kale ee Carabiga. Lahjaddan waxaa si gaar ah looga isticmaalaa dhulalka Shaam sida Suuriya, Lubnaan, Urdun iyo Falastiin. It's called the Levantine Arabic or Shami Arabic. We do not pronounce the letters th, the, dha and qa. For example, the word qamar means moon. We pronounce it as qamar. waxaana si cad looga dareemi karaa farqi weyn marka loo barbar dhigo Carabiga caadiga ah ee laga isticmaalo wadamada kale ee Carabta. Suuriya waxaa laga helay raadad taariikheed oo muujinaya in dhulkan la deganaa xilli aad u fog, isla markaana ay martigelisay ilbaxnimooyinkii ugu horreeyay ee caalamka. ka hor taariikhda miilaadiga, ilbaxnimooyinkii soo maray waxaa ka mid ah boqortooyadii Ebla. boqortooyadan waxaa laga helay mid ka mid ah maktabadaha ugu qadiimsan adduunka, oo ay ku jiraan in ka badan 20,000 oo looxaan dhoobo ka samaysan, kuwaasoo la qoray 2,000 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga. qoraaladan waxa ay xambaarsan yihiin macluumaadyo muhiim ah oo ku saabsan ganacsiga, maamulka, qoysaskii boqortooyada, diimaha iyo caqiidooyinkii ay aaminsanaayeen. kadib dhulkan waxaa soo maray Amuuriyiin iyo Xitiyiin, kuwaas oo caan ku ahaa samaynta biraha iyo xeeladaha dagaalka. Markii ay burbureen, Aramiyiin ayaa qabsaday dhulkan, waxayna dhiseen boqortooyooyin yaryar sida boqortooyada Aram oo xarunteeda ay ahayd magaalada Dimashq. kadib waxaa xigay boqortooyadii Ashuuriyiinta iyo boqortooyadii Neo-Babylon. ka hor taariikhda miilaadiga, dhulkan waxaa maamuli jirtay boqortooyadii Akhminiyiinta ee Faris, kadibna Alexander the Great ayaa jabiyay Farisiyiinta, wuxuuna Suuriya hoos geeyay xukunkii Giriigii hore. waxaana xigay ilbaxnimooyinkii kale sida Roomaankii iyo Byzantiniyiintii. Islaamku waxa uu soo gaaray dhulka Suuriya ama Shaam qarnigii 7aad ee miilaadiga, gaar ahaan xilligii Khulafaa ur-Raashidiin. Khaliif Abubakar as-Siddiiq radiyallahu anhu ayaana bilaabay furashadii dhulalka Shaam, iyadoona dagaalo uu dhex maray muslimiinta iyo boqortooyadii Byzantine. dagaaladaas waxaa ugu caansanaa dagaalkii Yarmouk, wuxuuna dhacay xilli khilaafadu ay hoos timid Khaliif Umar bin Khadaab radiyallahu anhu. ciidamadii muslimiinta waxaa hogaaminayay Khalid bin Waliid iyo Ubayda, waxayna ku jabiyeen boqortooyadii Byzantine meel u dhow wabiga Yarmouk. guushan waxa ay horseeday in dhammaan Suuriya ay hoos timaado xukunkii Islaamka. kadib soo ifbixii Islaamka, Suuriya gaar ahaan Dimashq waxay xarun u ahayd khilaafadii Umayyiyiinta, waxayna dhiseen dhaxal weyn oo taariikhi ah sida masjidka weyn ee Umayyiyiinta oo ka mid ah masaajidda ugu weyn uguna qadiimsan caalamka. waxaana xigay khilaafadii Cabbaasiyiinta
inkastoo xaruntoodii ay u wareejiyeen Baghdad haddana Suuriya waxa ay sii ahayd dhul muhiim ah markii khilaafadii Cabbaasiyiinta ay daciiftay waxaa talada la wareegay Ayuubiyiintii oo uu hogaaminayay Salaaxudiin al-Ayuubi. I leave to you and what God will make of him. No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Ayuubiyiintu waxa ay door muhiim ah ka qaateen dagaaladii Saliibiyiinta iyagoona difaac xooggan u ahaa dhulalka Islaamka. qarnigii 13aad Suuriya waxa ay wajahday weeraro ba'an oo uga yimid Tataarka ama Mongoolkii oo asaasay Genghis Khan kuwaas oo dhulka Suuriya qabsaday kadib markii ay dumiyeen khilaafadii Cabbaasiyiinta ee Baghdad waxaana Tataarka dib uga xoreeyay Mamaalikiintii Masar dagaal la magac baxay Aynu Jaaluud. Mamaalikiinta ayaana xukumayay Suuriya kahor inta aysan si rasmi ah u hoostagin khilaafadii Cusmaaniyiinta oo dhulkan xukumaysay laga soo bilaabo qarnigii 16aad ilaa qarnigii 20aad. markii ay daciifeen Cusmaaniyiinta Suuriya waxa ay gashay gacanta Faransiiska kadib dagaalkii koowaad ee adduunka. Faransiiska ayaana si kooban u xukumayay Suuriya ilaa ay madax banaani buuxda ka qaadatay 1940-meeyadii. Shukri al-Quwatli ayaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Suuriya oo si dimuqraadi ah loo doorto kadib markii ay xornimada ka qaadatay Faransiiska. wuxuuna ka mid ahaa halgamayaashii xornimadoonka ee Suuriya balse afgambi military oo hogaaminayay Xusni al-Zaciim ayaa xukunka looga tuuray 1949. Xusni al-Zaciim waxa uu ahaa sarkaal military iyo madaxweynihii ugu horeeyay oo afgambi military ku qabsada dalkaas. waxyaabaha laga qoray Xusni al-Zaciim waxaa ka mid ahaa in uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka laga soo bilaabo xilligii Cusmaaniyiinta ilaa iyo Suuriya ay madax banaani ka qaadatay Faransiiska. wuxuuna ka qayb qaatay dagaalkii Carabta iyo Israa'iil ee dhacay 1948. kadib guuldaradii Suuriya ee dagaalkaas wuxuu si lama filaan ah afgambi ugu qabsaday xukunka wuxuuna noqday madaxweynaha Suuriya iyo taliyaha guud ee ciidanka. waxyaabaha kale ee diiwaanka ugu qoran waxaa ka mid ah in uu ogolaaday heshiiskii ay Suuriya la gashay Israa'iil taasoo ay dad badan ku dhaleeceeyeen ayna u arkeen khiyaano qaran. Xusni al-Zaciim kuma uusan sii waarin xukunka in ka yar 5 bilood gudahood waxaa xilka looga tuuray afgambi military oo uu hogaaminayay Saami al-Xinaawi. isla maalintii ku xigtayna waxaa la toogtay isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa. afgambigii uu bilaabay Xusni al-Zaciim waxa ay Suuriya u furtay albaab cusub oo taariikh madow ah. silsilada afgambi xukunno military mid rayid iyo mid kaliya taliye laga soo bilaabo 1946 ilaa uu xukunka afgambi kula wareegay Xaafid al-Asad waxaa dalka soo maray in ka badan 18 madaxweyne qaarkood waxa ay xilka hayeen sanado qaar kalena muddooyin kooban oo bilooyin ah halka qaar kalena ay hayeen xukunka maalin oo kaliya. xaaladahaas kala duwan ee ka dhacay dalka waxa ay muujinayeen in xukunka inta badan uu ku xirnaa awood military iyo afgambi. 1958 Suuriya iyo Masar waxa ay si rasmi ah u samaysteen hal dawlad oo la magac baxday Jamhuuriyadda Carabta ee Midowday United Arab Republic. Jamaal Cabdi Naasir oo ahaa madaxweynihii Masar ayaana noqday madaxweynaha labada dal ee Masar iyo Suuriya. ujeedada ugu weyn ee midowgan waxa uu ahaa aragti siyaasadeed oo lagu doonayo in wadamada Carabta ay noqdaan hal qaran oo midaysan. hase yeeshee midowgaasi ma sii jirin muddo dheer 3 sano kadib waa uu burburay. Xaafid al-Asad waxa uu ahaa madaxweynihii ugu xukunka dheeraa ee Suuriya waxa uuna xukumayay dalkaas 29 sano laga soo bilaabo 1971 ilaa 2000. waxa uu ahaa hogaamiye military iyo siyaasi ka soo jeeda Xisbul Bacthiga Suuriya. intii uu talada dalka hayay waxa uu dhisay nidaam kaligii talis ah oo xooggan isagoona gaboodfalla ka geystay dalkaas gaar ahaan magaalada Xamaa. sanadkii 2000 kadib geeridii Xaafid al-Asad waxaa xilka la wareegay wiilkiisa Bishaar al-Asad isagoona sii waday siyaasadii iyo habmaamulkii aabihii. inkasta oo uu ballan qaaday dib u habeyn siyaasadeed iyo horumar dhaqaale haddana waxa uu noqday mid ka adag aabihii. sanadkii 2011 kacdoonkii caanka ahaa ee loo yaqaanay Guugii Carabta ayaa gaaray dalka Suuriya taasoo keentay mudaharaadyo waaweyn oo lagaga soo horjeeday xukunkii reer Asad. dibadbaxyadaas waxa ay markii dambe isku bedeleen dagaal sokeeye oo daba dheeraaday sanado badan. ugu dambeyntii bishii December ee sanadkii 2024 waxaa dalka laga eriyay Bishaar al-Asad. A 13-year civil war in Syria ended abruptly on December 8th after an armed Islamist faction, Hayat Tahrir al-Sham, or HTS, toppled the regime of longtime dictator Bashar al-Assad. badka guud ee dalka Suuriya waxa uu ku fadhiyaa dhul cabirkiisu dhan yahay 185,180 kilomitir oo laba jibaaran waana mid ka mid ah wadamada ugu dhulka weyn gobolka Bariga Dhexe. dhulkan ballaaran waxa uu ka kooban yahay buuro, bannaano, lama degaan iyo xeeb dhirirkeeda lagu qiyaaso
183 kilomitir oo ku teedsan badda Mediterranean-ka. galbeedka dalka waxaa ku yaala silsilado buuro ah oo lagu magacaabo Bargilus ama Jabal Nusayriya, kuwaas oo ah meelaha ugu cagaaran dalka. koonfurtana waxaa ku yaala buuraha Antilubnaan, halkaas oo laga helo buurta ugu dheer dalka ee Hermon, taasoo dhirirkeedu lagu qiyaaso 2814 mitir. webiga Furaad waa isha biyaha ugu muhiimsan ee dalka Suuriya. labada webi ee Baliq iyo Khabuur waxa ay ka mid yihiin ilaha muhiimka ah ee webigan oo ka helo biyaha. sidoo kale webigan waxa uu leeyahay haro weyn oo lagu magacaabo harada Asad, taas oo laga sameeyay biyo xireen weyn oo loo yaqaan Tabqadaam. webigan iyo biyo marinadiisa waxa ay yihiin isha nololeed ee ugu muhiimsan Suuriya, iyadoo bulshooyinka ku nool dalkaasi ay kumanaan sano ku tiirsanayeen kheyraadkiisa. dalka Suuriya waa mid hodan ku ah kheyraadka dabiiciga sida beeraha iyo shidaalka. inkastoo Suuriya aysan ku jirin tobanka ugu horeeya ee dalalka soo saara shidaalka, haddana waxa ay leedahay keedad shidaal oo ku yaala lama deegaanka waqooyi bari ee dalka. sidoo kale dalkan waxa uu dhoofiyaa saliidda saytuunka in ka badan shidaalka. saliidda saytuunka ayaana ah kheyraad qaali ah oo kaliya aan loo isticmaalin cunnada. saliiddan waxyaabaha ugu caansan ee laga sameeyo waxaa ka mid ah saabuunta Alleebo. saabuuntan waxa ay leedahay taariikh soo jireen ah, waxaana weli loo adeegsadaa farsamo dhaqameed qadiimi ah ilaa iyo maanta. cuntooyinka Suuriya waa qayb muhiim ah oo ka mid ah cuntooyinka badanaa laga isticmaalo bariga Mediterranean-ka. cuntooyinkaas waxaa ka mid ah waraa caynab, mahashi, maqluube, kusablaban iyo sheeqal maxshi. cuntooyinkan waxaa si gaar ah looga isticmaalaa magaalada Dimashq, waana cunto laga sameeyo isku darka qudaar iyo bariis la kariyey oo loo diyaariyay qaabab kala duwan. Suuriya waxa ay leedahay goobo taariikhi ah oo ku jira liiska dhaxalka adduunka ee UNESCO. meelaha ugu caansan waxaa ka mid ah magaalada Dimashq. Dimashq oo ah caasimadda dalka Suuriya waxaa loo aqoonsaday in ay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu da'da weyn caalamka. magaaladan waxa ay leedahay meelo taariikhi oo caan ah sida masjidka Umayyiyiinta, waana mid ka mid ah masaajidda ugu weyn uguna qadiimsan caalamka. sidoo kale magaalada qadiimiga ah ee Xalab waxa ay ahayd xarun ganacsi oo muhiim ah, waxayna caan ku tahay suuqyada qadiimiga ah iyo qalcadda Xalab. qalcaddan waxaa loo tixgeliyaa in ay tahay mid ka mid ah qalcadaha ugu qadiimsan uguna weyn caalamka. inkasta oo waxyeelo ay ka soo gaartay dagaaladii, haddana weli waxa ay astaan u tahay taariikhda Suuriya. qalcadda Salaaxudiin iyaduna waa mid taariikhi ah, waxa ayna muujinaysaa xilligii Salaadiinta iyo dagaaladii Saliibiyiinta. Basra waa magaalo caan ku ah taariikhda Roomaankii hore, waxaana ku yaala dhismayaal iyo masraxyo oo ay dhiseen Roomaankii. magaalada Balmeera waa goob kale oo taariikhi ah, waxa ayna caan ku tahay farshaxanka Roomaankii hore. ugu dambeyn magaalada Amrid oo ah magaalo fac weyn, waxaa laga helay garoonka Olombik ee ugu qadiimsan caalamka.